وصلوا وصاحب بيال وردك دقا أو قردو نسو قاري أيا شيغي إن دقال حوقن وعاوة كدعي عيلاشا بيها إيه مقالة مقدشو دقال كان وحود حيا عيدا مدى الدولة دا إيا كوحدا أرقاق حيسادا وحاونا كوب اللو ذا كدي مركي عيدا مو دولة دا أو روندا سمينيا أي دريمين ميل وتاك كجيرو أو مدى أو حمنا كترسان كوحدا أو قاقاتما يكواسو دوني إن أي ويرر كو قادان سالدقا عيدا مدى الدولة دا عيلاشا بيها كويالا halkaas ayayna ciidamadii roondada sameynayay rasaas ay ku bilaabeen xubnihii gaagaatamaya doonayay inay weerar gaadma ah ay ku soo qaadaan saldhigga ciidamada dawladda ee ceelasha biyaha khasaare xooggan ayaana kooxda la gaarsiiyey cabaar ayayna rasaastu dhacaysay goobjoogayaal aaggaasi ku sugan ceelasha biyaha iyo weliba qaybo ka mid a xaafadaha ka agdhow ceelasha biyaha ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas xooggan ay daqiiqado kooban isweydaarsanayeen kadibna goobtii ay rasaastu ka bilaabatay laga fogaaday taas oo inta badan wararku ay sheegayaan in la jabiyay xubnihii ka tirsanaa kooxda argagixisada isla markaana ciidamadu ilaa iyo hadda ay kusii daba jiraan firxadka kooxdaasi gaagaatamaysay ee nabadiidka ee halkaasi qaybo ka midana looga dilay xubno badan ayaa meydadkooda goobtii lagu dagaalamay lagu sheegay oo ay kooxdu kaga carareen halka ciidamadu qaybtii kale firxatay ay kusii daba jiraan qodobkeena koowaad ayaana ku faahfaahin doonaa dagaalkaas iyo guulaha ciidamadu ay ka gaareen hordhaca iyo kooxda argagixisada sida ay iskugu taxaluujinayaan ama ay xoogga u saarayaan in goob walba iyo meel walba oo dawladdu ay joogto ay amni darro ku abuuraan ayna khalkhal ay ka abuuraan oo weerar gaadma ay ku qaadaan waxaan dhinaca kaleeto mid iyo laba iyadana ka dul istaagi doonaa shir degdega ayaa caawa u furmay madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga soomaaliyeed oo ugu horeeyo genaraal odowa taas oo madaxweynuhu uu si degdega ugu baaqay in saraakiishu ay sida ugu dhaqsiyaha badan muqdisho ku imaadaan diyaarad helicopter oo kuwa qumaatiga u kaca ayaana la sheegay in genaraal odowa iyo saraakiil kaleeto ay galabta ka qaaday degmada moqokori ee gobolka hiiraan oo maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa genaraal odowa waxaa la sheegay in shirkan diiradda lagu saarayay sidii looga arrinsan lahaa fashilka ciidamada soo gaadhay iyo sababaha kooxda argagixisada ay ku qabsadeen inay keentay inay qabsadaan degmada aadan yabaal iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo sidii laga yeeli lahaaba iyadoo wararka qaar iyadana ay soo baxayaan in madaxweynuhu soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel lagu sameeyo taliyaasha ciidamada waxaa dhanka kaleeto iyadana jira cadaadis la doonaya in la saaro qaar ka mid a saraakiishii ku sugnayd degmada aadan yabaal oo ayagu amar diidda sameeyey islamarkaana sabab u noqday in kooxdu ay qabsato degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe iyadana waan dul istaagi doonaa saraakiishaasi waxaan dhinaca kaleeto mid iyo labo aynu ka dul istaagi doonaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo genaraal odowa ayaa aad ugu kala aragti duwan baa laleeyahay hanaanka loo hogaaminayo dagaalka kooxda argagixisada lagula jiro taas oo dhaliilo badan madaxda dowladda loogu jeedinayo dad aan munaasabkeeda ahayna ay ku soo biirisay hogaaminta dagaalka kooxdaasi lagula jiro haddaba dadka iyaga waa kuwaba ee laga shakisan yahay ee madaxda dowladdu ay soo dirtay saraakiishuna ay diidan yihiin iyadana waa soo qaadan doonaa soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidina nugula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay caawa dagaal daqiiqado kooban socday ayaa ka dhacay ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho sida dad badan oo aaggaasi ka agdhow ama muqdisho ku sugan ay ku waramayaan waxay wararku sheegayaan in kooxda argagixisada xubno ka tirsan oo dhuumaalaysi doonayay inay tartiibinta u soo dhuuntaan weerar gaadma ay ku qaadaan saldhigga ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho in si kadis ay ku arkeen ciidamo roonda sameynaya oo kuwa dowladda kadibna ay dareemeen kooxdii oo weli aan rasaas furinba in ay markaasi dareemeen in meeshan taagtaag uu ka jiro niman gaagaatamayana ay meesha ku jiraan ciidamada dowladda ayaa sidaasi marka rasaas xooggan ku furay oo aysan kooxdu iska dhaadaynin si kadis ah ayaana loo boobsiiyey oo rasaas aad u tiro badan loogu furay taas oo sababtay in iyagoon iska dhaadaynin khalkhal lagu rido oo xubno halkaasi looga dilo halka qaybo kalena ay carareen oo ciidamadu ay kusii daba jiraan saacaddan oo aynala hadlay sida dad goobjoogayaala ay sheegeen xubnaha la dilay meydadkooda maana arag laakiin waa sida dad badan oo halkaasi ku sugan ay warbaahinta u sheegeen ama ay noogu waxa weeye aan xogtooda ku helnay tirada kolley dowladda waqti xaadirkan oo aynala hadlay waa suurtagal in dowladdu ay soo gudbiso
waynu eegi doonaa laakiin waxaa xaqiiqo ah in kooxdii gaagaatamaysay doonaysay in saldhigga ciidamada dowladda ee ceelasha biyaha ay weerar gaabmaha ku qaadaan in halkaasi lagu jabiyey firxadkoodina magaalada laga saaray oo ciidamadu ay kusii daba jiraan rasaastuna ay kasii daba dhacayso dabada laga galay taas ayaa xaqiiqa oo la iskaga wada maqraati kacay xagga dhimashada inta dhimatay iyo inta ciidanka ka dhimatayba weli lama ogaani maadaama rasaastu ay dhacayso waqti xaadirkan oo codka aan duubaya sida goobjoogayaal ay noo sheegeen wixii kasoo kordho waynu eegi doonaan dhinaca kale shir degdega ayaa caawa u furmay oo yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeyay generaal odowa madaxweynaha ayaa u yeedhay saraakiishaasi oo jiidaha hore ku sugnayd iyagoo weliba diyaaradaha qumaatiga u kaxay helicopterta ay ka qaadeen degmada Muqoori ee gobolka Hiiraan ayna caawa shir albaabadu u xidhan yihiin ay ku yeesheen filla Soomaaliya madaxweynaha ayaa weydiiyay saraakiishan sida ay xoguhu inta badan tibaaxayaan maxay tahay sababaha keenay fashilka ciidamada xagee ayaa la inaga haystaa sidee ayay ku dhacday in degmada aadan yabaal iyo degmooyinka kale istiraatiijiga gobolka Shabeellaha iyo waliba gobolka Hiiraan ay qabsadaan kooxaha argagixisada walow Hiiraan degmooyin aan la qabsanin ay tuulooyin lagu dagaalamo waliba juhdi badan ciidamada dowladda iyo kuwa maxawslada ay ku bixiyeen ugu dambeyn ay ciidamadu ka soo baxeen ay taho kaliya sida hadda deegaanadan waxa weeye maalmihii ugu dambeeyay ka tirsanaa degmada Buulaburde deegaanadii ka tirsanaa maalmihii ugu dambeeyay lagu dagaalamay General Odowa ayaa dhinaciisa wata option kaleeto oo la xiriira in fashilada ay ugu wacan tahay faragelin badan oo ciidamada lagu hayo saraakiisha ciidamaduna arintaa way qabaan oo way iska raacsan yihiin in faragelin lagu hayo saraakiisha ciidamadu inaysan qayb isaga ka amar qaadanin qayb madaxweynaha ka amar qaataan qayb ganacsato ka amar qaataan qayb odayaal dhaqan ka amar qaataan qayb ka amar qaataan maamulka Hirshabeelle oo wax meeshan amar kala qaadanayaba uusan jirin waa sida xogaha hordhaca nagu soo gaaraya way madaxweynuhu wuxuu soo jeediyay arintaa kadib waxaa la sheegay in la isla qaatay in amar buuxa loogu wareejiyo General Odowa faragelinta xaqiisa ka timid ee ganacsatadan shuluqu ka mid yahay ee fariimaha ku sugan iyo guddigii la dagaalanka argagixisada ee madaxweynuhu oo magacaabay xubno wasiirada iyo iskugu jiray odayaal dhaqan iyo iskugu jirayna meesha laga saaro General Odowa iyo taliyaha ciidanka lugtana loo madax baneeyo taliyaasha ay qusayso loo madax baneeyo dagaalka saraakiisha la tuunsan yahay ee aadan yabaal waxa weeye inay qabsadaan kooxdu sababka u ahaa ee amar diidada sameeyayna in cadaadis la saaro oo tallaabo adag oo sharci laga qaado kala dambeyn ciidan la soo celiyo dagaalkuna sida ugu dhaqsiyaha badan oo bilowdo ayaa la isla waafaqay waxaa dhanka kale jirta dad badan oo qaba in taliya Odowa uu fashilmay oo xilka laga qaado halka qaybo badan oo mas'uuliyiin ay u soo jeedeen madaxweynaha inaan xilka qaadis la sameeynin waqti xaadirkan oo had taliya la bedelin waxba aan la bedelin laakiin isku shaandhayn la sameeyo kala amar qaadasho la sameeyo faragelinta Odowa iyo saraakiishu ay qabaan laga dhex saaro ayaa loogu baaqay oo waxa weeye madaxweynaha ay ugu baaqeen ala xaal waxay wararku sheegayaan in lagu heshiiyay sida ugu dhaqsiyaha badan in saraakiisha horta amar diidada sameeyay talaabo looga qaado waa koow isku shaandhayn in la sameeyo waa laba in talaabo dhaqso la qaado la qabto degmada aadan yabaal iyo goobaha muhiimka degmooyinka muhiimka ee kooxda argagixisada ay gacanta ku dhigeen in talaabo muuqato lagu soo celinayo sharafka ciidamada in la sameeyo maadaama daleecayn xooggan ay xukuumaddu la kulantay isla markaana adduunkii uu yaaban yahay caawinaya Soomaaliya oo la leeyahay dawladii maxaa helay dhulkii ay qabatay 2 sano iyo bar ka hor dib baa looga qabsaday kooxda argagixisada ee Muqdisho ay qabsanaysa suuqa loo geliyay sida uu dhaqsiyaha badan dagaal qaada buu waana suurtagal isaga naftigiisa in bari ama bari damaalmaha ugu soo aadan in furimaha hore ee dagaalka uu tagay iyadana waa suurtagal kooxda argagixisada waxay haysataa degmadii aadan yabaal dadkii ayay birta ka aslaysaa gabadha soo qaba gowrac wiilkan soo qaba gowrac odaygan soo qaba gowrac dadkii gowrac baa eber looga dhigay kaaga darana kufsi baa qaarkood loo geysto waaba la kufsadayba saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiintiina iyagii baa waxa weeye kala shakisanba oo maanta wax la aamina la garan laayay Odowaana wuu ka cararay aadan yabaal iyo duleedkeeda waa ka cararay Muqoori buu cararay halkaas buu cararay u joogay maalmihii ugu dambeeyay oo ayada naftirkeeda laga qaxiyo cabsi xoogan laga qabay maadaama degmadan aadan yabaal iyo degmadan aysan kala dheerayn suurtagal ay tahay baa la yiri in
kooxdu ay qabsatay degmada naftirkeeda weer ay ku soo qaato oo dad shacab badan baa ka cabsanayo culays xoogan bay kooxdu soo saartay maadaama aadan yabaal ay qabsatay tan waa suurtagal baa lahaa oo cabsi xoogan baa laga qabay si kastaba awaamir adag baa dhacday waxa go'aan lagu gaaray in odowaa loo madax baneeyo oo waxa weeye faraha kaleete ee faragelinta ku jirta laga dhex saaro waa sida wararka hordhacan ugu soo gaarayaan weye inay wax iska bedelaan waa suurtagal odowaa naftigiisa in la cuno xilka laga qaado waa suurtagal waxa weeye kuwii muqdishoba waa kuwaasoo kooxdii u dhadhakanaysa soo weeraraysa meel walba fashilku waa ka jira amniye inay waxa weeye sidaa hadda warku nagu soo gaareen ay sax noqotona waa dhowr qof oo kala duwan baa noo sheego noo xaqiijiyay arrintaasi wixii kasoo kordho waynu eegi doonaa muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo